السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي سود وهذا ما أنتم حصينا ما يستردنا عشركي لسون تريجها قبيضة هذا أنا ما تصير مسترنا وبيجكي عن سمعني حرامات ناسي عشركي ناسي كلنا وأنقصي درنا حرام نقول مهم سنة أصلنا هي كلميين أكو حنقول حسوسين عادية تعمل كوه رسي وأدعك صوب وقته إن سبسكرايب صارته sidoo kale fiidiyoga Allah ka saarto ana sheegareyso si asxaabadan u gaaro maanta cashirkeena ayaan ka sii way doonaa maalintii hore waxaan sameynay inta loo kala sameynay maanta waxaan rabaa meeshaan image slide ku inaan soo gelino sawir sidoo kale maadaama sawir marka ma soo codsin karno because annaga ma isticmaalayno CSS HTML kaga marna isticmaalno inta ugu muhiimsan oga CSS yara isticmaal doonaa oo la yiraahdo inline CSS waxoogaa ka maarmi jira inaan wax ku waxano waxaan rabaa marka inaan soo geliyo qaybtan image sidoo soo gelina laba nooc samayn kartaa image-ku waxaa samayn kartaa image khabarka uu ku fadhiyo image slider-kan width-kiisu ama balliciisu waa 1 pixel height-kiisu ama dhererkiisuna wuxuu ku fadhiyaa 400 oo pixel marka image yaa soo waxsan kartaa يعني wax kasto design artana aad isticmaali kartaa had saaran sawirka soo gelin doono oo sawirkana u jeedo waxaan ku soo sameeyay Photoshop aan u diyaariyay marka habira saaran kartaa habirka marka aad soo saarato wuxuu ka caawinaa habirka wuxuu ka caawinaa inaad u baahan marka image ka soo wacdo inaad height iyo width macnaha balac iyo dherer bayna u sheeg height kiisa inaad shoogin width kiisa sidoo kale inaan u sheegin oo ka caawina salahan had sawirka hadii aan soo geliyo intuu waxaan tagi doonaa image slider-keena image slider-ku halkan buu fadhiyaa wakana image slider-ku waxaan soo gelin doonaa image ku waa united sawirka qaab noocan default-kiisa soo save gareeyana haddii aan soo laabto waa refresh iraahdo waxaa arkaysaa image-ki si toos ah sida uu because cabira soo saari marka waxaad dareemaysaa inuu si toos ah u fariisto macnaha sidoo kale mid kalena saas camal baa maalintii hore usoo diyaariyay my banner haddii aan bannerkan asana mid kale asiga bedesho xogaa sam si waxay u quruxsan iska noqdaan ban.png waya haddii aan refresh iraahdo somehow sidaan sameyn waxaan rabaa in qaybtan hoosaan imaado oo sawiradan iyagana ah habeeyo section 1 baan tegi doonaa waxaan soo gelin doonaa sawir section 1 واسكت ترى دانا حسب إيش دانا إيميل عليه دانا section C1 أنا سويره وحسب سوقاتي أو نسكسوس سميست أو 1 2 3 4 أسكت سوقري مركوح كستا زي كمان عادي أسمي سلسلة بكهرباء حدا 1 2 3 4 أنا أوصل عمل سوق إيش دانا حدا 1 كان سوق لي مركوح أنا سيستم أنا أسوق لي 1 2 3 4 أنا أسوق لي كلا كان سوق كلا كان بدل دانا waxaan dhihi doonaa kalarkan iska qaadi doonaa hal mar waxaan sii doonaa kalar cadaan ah control x kalarka cadaanka xagee ka siinaa waxaan rabaa inaan kalar cadaan ka siiyo maadaama section 1 ilaa section 4 uu diyaarsan yahay waxaan rabaa inaan ka maamulo tr ka imaan doonaa dhammaantood hal kalar aan sii doonaa waxaan sii doonaa white kalarkooda waxaan ka dhigi doonaa tr ka maamulo doonaa maanaha because tr2 TD da TR ku dhex jirta marka kalarka marka u baahan marka tadaasan tanid waxaan u baahan kalarka gudaha ku jiro because hal kalar oo cadaan ah ayaa banaanka soo siiyay haddii aan iraahdo refresh waxaad dareemi doontaa kalarkii in cadaan laga wareegay waxaan markii image-kan sidoo kale kuwaan iyagana soo geliyo image control C section 2 image of model doona waxaan doonaa C2 macnaha anigu kuwaan hore soo diyaarsaday desktop-ka iyana
sawirro adiga doonayso ma soo gashan kartaa markasta. C3 kan waxaan soo gashan doonaa C section 4 oo soo gaabso C4. haddii aan refresh raacdo waxaad dareemaysaa in 1 2 3 4 inii soo geliyo. waxaan rabaa marka inaan dhexda isugu keeno, tan inaan habeeyo dhexda inaan keenaan rabaa. maxaan sameynayaa waxaan tegi doonaa TR-ta, waxaan dhihi doonaa align center. waxaad ii geysaa centerka. xagee waa meesha centerka aan geynaa because TR-ta kusoo sheegaa. TR-ta wax kastoo kusoo sheegto dhammaantood hal mara ka maamuli kartaa maana. haddii aan refresh raacdo waxaad dareemaysaa dhexda in la keeno dhammaantood dhexda isugu maanay. okay, waxaan rabaa sidaan afrigeeska ah ma doonaya. waxaan rabaa inaan u yeelo border radius inaan geliyo, wareeg inaan ka dhigo camal. waxaan samayn doonaa mid kasta geestada style ugu doona maanaha. waxaan isticmaali doonaa xogaa inline CSS yar isticmaali doonaa oo aasas u badnayn. waxaan dhihi doonaa border radiuskeedu waxay u dhigtaa 10 pixel aan iraahdo. border radiuskeedu waa 10 pixel aad u yar yahay. aan iraahdo 50 pixel. waa intii meeshan gelina. waxaan u baahanahay image-ka u baahanayaa style-ka soo qaado control X. macnaha meesha aan gelin doono waa style image-ka. macnaha image-ka waxaan u baahanahay asaga inaan bedelo. still boqol iyo marka border radiuskiisa waxaan ka dhigi doonaa 100. wuxuu noqday wareeg keliya. intaan baan soo qaadan doonaa style-kan soo kobiyeyso symbol control C intii maa control V. sidoo kale intaan imaadi doonaa waxaan dhihi doonaa control V control V. haddii aan idhaahdo refresh waxaad dareemi doontaa in somehow xogaa inay isira bedeleen. waxaan rabaa meesha hore inaan soo gashto about us, vision, mission, some macnaha example na soo waxaan meesha hajban noo soo gashto. waxaan tegi doonaa TD-da koowaad korkeeda tegi doonaa. waxaan dhihi doonaa hajwan. waxaan gashan doonaa about us. haddii aan refresh iraahdo meeshaan waxaa liisoo geliyey about us. sidoo kale tan iisoo qaad intimao hajwan. tusaale ahaan vision hajrigan midana waxaan gashan doonaa iyadana mission mid afaran waxaan iska dhihi doonaa as example image mao not meeshaan geli qalad ayaa control X. markasta waxaa loo baahan TD-da inaad gudaha geliso. waaya sidoo kale haj 4 time aan doonaa iyadana waxaan dhihi doonaa contact as example. haddii aan refresh iraahdo waxaad dareemaysaa in fartaan marka iyada laftarkeeda waa sii qorxin karnaa. fartaan laftarkeeda waa sii qorxin karnaa laakiin anaga halkan iska daysanayna. waxaan rabaa qaybta hoose inaan soo gashto qoraal about us, qoraal ku saabsan vision inaan hoos soo gashto paragraph yar ama qoraal inaan soo gashto. waxaa imaadi doonaa image koowaad hoostiisu waxaan dhihi doonaa kow break ayaan gashan doonaa. macnaha ma doonayo in image-ka lagu sii daba qoro. br hoosta imaadi doonaa waxaan dhihi doonaa paragraph E4
Paragraphkan ayaa marka waxaan kusoo dirsan doonaa sawir word macnaha waxaan rabnaa inaan meeshaan kusoo darsano qoraal ayaan rabaa macnaha inaan iska soo qaato wordka waayahay wordka soo kacaya waxaan dhihi doonaa equivalent equal rand waxaan iska soo qaadan doonaa intaan control c control v inta loo dhe okay haddii aan idhaahdo refresh maxaa isbedeli doona qoraalka maxaa arkaysaa inuu aad u dheeraaday waxaan samayn doonaa intaan soo koobiyeysan doonaa macallin inta waxaan soo koobiyeysan doonaa in la socoto BRT control c waxaa imaan doonaa image 2 hoostiisaan dhigan doonaa sidoo kale waxaa imaan doonaa image 3 sidoo kale asagana hoostiisa iska dhigo sidoo kale image 4 section 4 asagana hoostiisun baan dhigan doonaa haddii aan refresh idhaahdo waxaa arkaysaa in qoraalkii uu isku daro marka waxaan rabaa qoraalkan xogaa inaan kala saaro intaan wax kala gaarin waxaan samayn doonaa kow qoraalkan style aan samaysto waxaan tegi doonaa section 1ka brkan aan imaan doonaa waxaa style ka furanaysaa style markaan ka furto kuwa waxaan dhihi doonaa font size farta cabirkeedu waxaan ka dhigi doonaa 16 pixel sidoo kale waxaan dhihi doonaa 16 pixel dheer control s farta cabirkeedu dikwaad banaan fiiriyo 16 pixel haddii aan raahdo far aad macnaa aad aan weynay bal inuu shaqeynayo ya starku shaqeynayo haddii aan raahdo marka 17 pixel aan refresh raahdo somehow way runay waxaan rabaa inaan sameyno waaya color aan sameyno marka colorkeeda waxaan ka dhigi doonaa color yara xataa haddaan blue ka dhigo not navy nooga dhig farta colorkeeda waxaan ka dhigi doonaa navy farta colorkeeda haddii aan navy ka dhigno ayana maxaa isku dalaya sidoo kale waxaan u baahanahay tan haddii aan idhaahdo mission waayahay okay text align aan sameeyo because waxaan rabaa in meeshaan xogaa inay kala leexdaan waxaan samayn doonaa waxaan tegi doonaa waxaan dhihi doonaa text alignmentigiisu ha ii noqdo justify shaqadiis maxaa macnaha inuu separate ku sameeyo justify okay aan idhaahdo sidoo kale padding 10 pixel paddingkiisu ha ii noqdo 10 pixel xogaa in ayaa laga soo sikiyo mid kasta intaan amal u baahnay marka inaan intaan kusoo darsano keliya maxaan sameynaa waxaan soo qaadanaa styleka oo keliya intaan soo koobiyeyso kaliya intaan koobino control c
waayo waxaan doonaa intaan ku darsan doonaa control v sidoo kale missionka asagana tani maaw kaliya mid kasta copy because inaan laba style badan qor lehnay mid kasta waa ugu baahannahay sidoo kale midaan imaan doonaa control v sidoo kale like that tan imaan control v waxaan u baahannahay maana waxaan rabaa dhammaantooda inay sidaa noqdaan haddii aan refresh iraahdo waxaad dareemaysaa inay seen mid kale inuu kala saaran kan iyo kan difference u dhexeeya maana waxa u dhexeeya xogaas line yar u dhexeeya inaan shidaan ka dhigo waxaana farta inaan kusoo daro read more inaan kusoo daro waxaan sameynayaa inaan read more kusoo daro waxaa u baahanahay waxaa u baahanahay button ama aanu button kusoo darin ayaa waxaan sameyn karaa inaan u sameysto tusaale ahaan section 2 again meesha ugu dambeysta waxaan dhihi doonaa href anchor tag noogu furo meesha waxaan dhihi doonaa c macnaha qoraalka wax kaban cmo xogaa qoraalka waa ujeeda cmo aa ku ah waxaan rabaa inaan sameeyo xogaa farta inaan cmo qorso ayadana sidoo kale aan gishto br break askriyo macnaha si hoos ligu keen haddaan refresh iraahdo cmo waxaan rabaa iyada inaan u yeelo background yar inaan u yeelo sidoo kale la arki karo waxaan sameynayaa halkan baan ka furin doonaa inta waxaa ii gelisa hash because linki click la sida lagaa maro meeshaan waxaan ka furin doonaa stylekiisu waxaan dhihi doonaa background korta igu sameeya backgroundgiisu waxaa iga dhigtaa blue haddaan refresh iraahdo color waxaan noola sameeyey blue ah sidoo kale colorkiisu farta colorkeedu waxay iga dhigtaa colorkiisu waxaan ka dhiganayaa white farta colorkeeda caddaan iga dhig haddaan refresh iraahdo farta colorkeeda caddaan laga dhigi waxaan samaysan doonaa padding yar padding 10 pixel paddingkiisu ay noqdo 10 pixel xogaa waxaa samaysan doonaa door radius paddingka xogaa uu weyn yahay waxaan ka dhiganaa 5 macnaha paddingkiisu xogaa 5 waxaan ka dhigay 50 maan ka dhigay paddingkiisu waxaan ka dhigan doonaa 5 waa yahay waxaan kaloo sameyn doonaa fartan waxaan rabaa inaan ka dhigo colorkeedu naafuda 23 pixel ka dhig haddii farta 23 pixel qaybta kore aan ka dhigo maxaa isbedeli doono inaan aragto xogaa isbedel yar marka dhammaantood waxaan ka dhigi doonaa 23 pixel control c tan imaa waxaa ka dhigtaa 23 sidoo kale middan hoose ayadana waxaan ka dhigi doonaa like that sidoo kale middan ayadana 23 aan ka dhigi doonaa haddii laga refresh xogaa farta sida hore waa ka yarweyntaa
waxaan rabaa xoogaa inaan u yeelo geesahaas inaan ka qariyo border radius inaan saaro midka koowaad isla asaga meeshan horaan kusoo laabano shaqadaan sii wado baadhankiisa waxaan ka dhigay 10 pixel b waxaa styleka ajarefa baadhankiisa 5 pixel aan ka dhigay waxaan rabaa sidoo kale inaan u yeelo border radiuskiisu waxaan ka dhigi doonaa 10 pixel borderkiisu waxaan ka dhigay 10 pixel break waxaan gelin doonaa 2 xabo br xogaa hoos u soo riday waan kaliya intaan soo koobisan doonaa waan best ma ku dhigay style ma soo qaadanaa waan ku ma baahanahay hajreefaan dhammaan waa u baahanahay eeda meesha ka hanata ilaa meesha ay ka furantahay control c soo dhahan doonaa intaa maago middan waa ugu baahanahay control v haddii aan aado control z maxaa iga qaldan control s aan iraahdo because waxaan kasoo tagay breakaan kasoo tagay macnaha breakaan rabaa inaan dhammaan la soo qaato ajreefaha waxaan kusoo dari doonaa brkiisa brtaan kasoo bilaabo ilaa meesha uu ka xiran yahay anchor tag control c soo dhig halkaan imaan doonaa waxaan dhihi doonaa inaan hoos imaano section 2 inaan control v ku niraahno sidoo kale section 3 like that dhammaan imaaw waxaan ku tiraa best ku dhile control v ku dhile sidoo kale for the last section ku ugu dambeeyo section 4 asagana waxaan dhihi doonaa control v so waxaan dhihi doonaa refresh haddii refresh niraahno waxaan ka dhigno read more marka hadda waxaad dareemaysaa xoogaa home pager oo quruxsan inaan diyaarin waxaan rabaa intaan waa diyaar marka waxaan rabaa marka inta la imaado history marka la imaado oo click la siiyo in page history la geeyo okay sidee page history marka ku sameeyaa page history waxaan ku samayn karnaa inaan kan dhan koobiyeysto page history image slider looga baahnaan doono sidoo kale visual emission kana looga baahnaan doono because marka history click la siiyo waxaan rabaa in lagu soo saaro history lagu soo saaro okay waxaan samayn doonaa waxaan dhigi doonaa control a page ka dhan oo history-ga oo web page-ka ama home control c okay control n loo dheh kana soo seefana marka desktop-ka noo geey waxaa nooga qoraysaa history.html for extension zaman control v baan leenahay haddii aan iraahdo refresh haddii aan iraahdo oon intimaado mar kasta oo history-ga lagu dhufto oo history waa kana history dib u soo raac anchor tag-geeda waxaan dhihi doonaa history.html page history.html marka history click la siiyo history.html loo geeyo haddaan refresh iraahdo haddii aan click iraahdo refresh leh history.html waana la geeyay macnaha hadda sababta maxaa waa arki laanahay title-kan soo bedelo title waxaa lagu qoran web page aan ka dhigo history
history haddii aan ka dhigo refresh there haddii aan history click siiyo why not working intimaw because waa qaldana controls s aan dhihi doonaa refresh not okay waxaan isticmaali doonaa qaladaan haysto history.html okay waaba qaldanahayba home page markaan joogo ma kusoo xiran because qaladka hadda meesha ku jira maxaa waxaa ugu soo xiray anoo history page aan sameeyaan joogaa kana imaado yes page history imaan doonaa waan ku xiri doonaa history ya qalad waxaa ku jiraan leeyahay halkan qalad ku jira haddii aan refresh idhaahdo oon history click siiyo waxaa nala geyn doonaa page history halkaas aad ku aragto laakiin waxyaalaha qaar ka saari doonaa history image story loogu baahno kana loogu baahno laakiin my banner iyo intaan waa u baahna okay waxaan tegi doonaa history ko image-ka u baahni tr robanka dhan u baahni ko control s sidoo kale haddaan iraahdo refresh waxaa laga saari robanka sidoo kale waxaan rabaa inaan iska saaro qaybtan row 3 dhan uma baahna asagana sidoo kale row 3 waa saaray waa row 4 ya tr tan uma ilaa iyo meeshay ka hantaa intaan ayadana sidoo kale uma baahna haddaan refresh iraahdo sidaana la sameyn waana hore inaan halkaa imaado halkan iska imaado row 4kan aan iraahdo tr sidoo kale td-dan tr-taas kusoo darsado z tr-ta waxaa kusoo darsado wiirtii hay balac uu leeyahay height inaan kusoo darsado tusaale ahaan heightkiisu height waxaan iska samaysan doonaa 700 pixel amana iska iraahdo sidoo kale background color aan sameeyo bg color bg colorkiisu waxaa ila mid noqdo white haddaan refresh iraahdo waxaad dareemaysaa bg color white in li sameeyey waxaan rabaa inaan hajwan yar meeshaan soo dhigto oo ku qoro history tdd maw waxaan dhihi doonaa hajwan now kana laga qaldayaa hajwan td-na waxaan gashan doonaa hajwan hajwanka waxaan ku dhex qaadan doonaa history waayahay haddaan refresh iraahdo waxaad dareemaysaa in meeshaan lagu qoray history cabirka waxaan iraahdo 400 pixel aan iska iraahdo history waayahay haddii aan ka tiro haddii aan midda iska tiro waxaa dhacaa waa khalad ayaa control z not possible maxaa lii sameeyey history lii sameeyey waxaan rabaa historygan
inaan xoogaa soo sikiyo sidoo kale qoraal history aan hoos qoro intaa imaan doonaa waxaan dhihi doonaa paragraph ii sameey paragraphkan waxay usoo jirtaa qoraal keywordka ahaa intaan isoo koobiyey macnaha history aan control z control v control s haddii aan ihahdo refresh ihahdo paragraphkan lii sameey waxaan rabaa xoogaa inaan kasoo sikiyo darbiga waxaan tegi doonaa intaa imaan doonaa dhammaan si loo soo sikiyaan u samaysta stylekiisa aan idhaahdo padding 10 pixel padding 10 pixel ama stylekan aan gishto control x paragraphka aan gishto control v aan refresh ihahdo hadaa waxaa laga soo sikiyey dhankaan laga soo sikiyey xaajoonka daarta dhexdooda geysan kartaa hadaa rabsaan ee aniga loo rabsan daarta adiga dhexdooda geysan kartaa oo center ayaa isticmaali kartaa kaliya waxaan soo koobiyeysan doonaa br control c control v haddii aan refresh ihahdo waxaa arki doontaa in la diyaari page history waa kan marka pagekan ayaa noo diyaarsan waxaan rabaa inaan sameeyo meel markii click homeka inaan ku laabano si aan ugu laabano maxaa u baahannahay intaa imaan doonaa td tr meesha ka hanta imaado waxaan isticmaali doonaa okay waxaan isticmaali doonaa anchor tag waxaan isticmaali doonaa back to home yahay waxaan rabaa inaan sameeyo back to home macnaha tusaale ahaan inaan saas ka samaysto hadaan refresh ihahdo waxaa arkaysaa qoraal yar liguma soo darin back to waayahay back to home ahref waxaan kusoo darsanay back to home refresh aan idhaahdo qoraalkan xagee kusoo daray intaan soo qaad control x leh waxaa ii geysaa td-da gudaheeda ii geey because waxaan rabaa inaan gudaha igu shaqeyso hadaan refresh ihahdo waxaa lii sameeyey back to home waxaan rabaa inaan quruxsado waxaan gashan doonaa style waxaan dhihi doonaa font sizekeeda waxay dhigtaa 23 pixel 23 pixel haddii aan ihahdo refresh maxaa arki doonaa haddaan refresh ihahdo adaa waa la weyniyey waxaan rabaa inaan samaysto background ayaan u samaysan doonaa backgroundiga waxaan ka dhigi doonaa blue coloraan farta soo kale u samayn doonaa colorkeeda waxaan ka dhigi doonaa farta meesha ku qoran white ayaan ka dhigi doonaa colorkeeda not for white it's white farta colorkeeda waxaan ka dhigi doonaa cadaan aan ka dhigi doonaa macnaha control s haddaan ihahdo refresh back to home ayaa lii sameeyey waxaan gashan doonaa baadina u samaysan doonaa
10 pixel padding 10 now xogaa badiyey I have somehow 5 padding 5 pixel padding bottom hoos waxaa ka sigtaa 10 pixel qaybta hoose waxaan rabaa inaan 10 pixel ka sikiyo padding top 10 pixel waayahay aan ragno padding top okay tan ba naga taliya sida dhanba uma baahnin haddii aan idhaahdo for padding kana naga tali font colorkeeda waxaan ka dhigtay white font colorkeedu waa white way aan refresh idhaahdo okay aan sameeyo border radius aan sameeyo border radiuskiisa wareegiisa xogaa aan ka dhigo 20 pixel 10 pixel aan border radius ka dhigo haddaan refresh idhaahdo xogaa waa yar bilaaran yahay 10 ka dhig 10 ayaa ku filan aragtaa marka xogaa farta font size 19 somehow aan ka dhigo haddaan refresh idhaahdo border radius ka dhan iga tir ama aada u sii yareey waxaan ka dhigtaa 5 refresh aan idhaahdo marka waxaan rabaa foomka haddaan click siiyo in la geeyo home page-kii maxaan samayn karaa keliya intaa imaanaynaa hashtaa naga qaato waxaan leenahay maxaa noogu qoran waxaa noogu qoran hoob nooguma qoran waxaa ku qoran web page aan ku qoran markaan soo siifin web page layout html ku qoran haddaan save idhaahdo oo refresh idhaahdo haddaan home page back to home waxaa lee keenay homekeygii sidoo kale kuwaan ayana waa samayn kartaa about us vision contact us waxaa linka ku hayn kartaa haddii history aan click siiyo waxaa la keeni doonaa page history aad dareemaysa oo ujeedaa sidoo kale haddii aan rabo inaan ku laabto back to home-na linkaas halkan baa click siin doonaa waxaan la keeni doonaa home page-keenii ayaa la keeni doonaa marka waxaan rajeynayaa intaan ayadana inay dhan tahay waxbaana ka fahamteen qofka macnaha hadduu rabo inuu sii wato about us waad dooran kartaa macnaha linka u samayn karaa linkana sidii history aan u samaynay inba mid kasta aan loo sameynaa marka wax oo difference oo kuwaan saa u samaynaysa jira malaha kaliya muhiimadu waxaa qof haddii home page-ka uu si wanaagsan isaga sameeyo kuwaan kale waa un kala koobiyeynaysaa mid kastana wax baa loogu baahan yahay unbaad ku buuxinaysaa marka waxaan rajeynayaa in cashirkeena intaas aan kusoo gabagabeeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu